Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay magacaygu waa Afnaan sanado badan aniga ninkeyga waxaan isku dayeynay inaan helno ilmo waxaan u tagnay dhakhtar laakiin nasiib darro dhakhtarku wuxuu ii sheegay inaan awoodin inaan ilmo dhalo waxaan dareemay walwal iyo naxdin aniguna waxaan ahaa macalimad waxaana maalin kasta wax u dhigi jiray caruur badan laakiin midkoodna ima oran hooyo xaaladeedina waxay isku bedeshay daal joogto ah ninkeyga macad wuxuu igula taliyay inaan ilmo korsano waqti badan iguma qaadan waxaan isla markiiba go'aansaday inaan ilmo raadiyo laakiin waxaan dareemay niyad jab aad u weyn maadaama dhaqaalahayga uusan ahayn mid fiican ninkeyga wuxuu ka shaqeeyay warshad aniguna waxaan ahay macalimad mushaar yar qaadata waxaan bilaabay inaan rajiyo in riyadoodu ay rumoobeyso ugu dambeyn waxaan helay wicitaan aan sugayay waxaana la kulmay gabar yar oo lagu magacaabo Jamiila oo 5 jir ah aad ayayna u yareed aniguna daadu muhiim ima ahayn waxa ii muhiimka ahaa jacaylka aan u hayay ilmaha habeenkii oo dhan hurday ma qaban anigoo ka fikiraya kulankaas oo sawiranaya wixii dhici lahaa aniga iyo ninkeyga waxaan aadnay xarunta agoonta anagoo gacmaha is haysana wadnahayguna si xawli ah ayuu u garaacmanayay lugahayguna way gariirayeen ka waran haddiina loo diido laakiin markii ay Jamiilana aragtay waxay si degdeg ah ugu soo orday dhankeena waxayna naga baabi'isay dhammaan cabsidiina haysay halkaas ayaana ka ogaanay inaan noqon doono qoys midaysan oo ay riyooyinkoodii rumoobayaan waxaan u sheegay Jamiila in aan jeclahay sidoo kalena aan u diyaariyay qolkeeda maamulay xarunta agoonta ayaa xanaaqsanayd waxayna naxsiisay in aan aad u nasiib badanahay maadaama aan korsanay gabar akhlaaq leh waxaan u ballan qaadnay in Jamiila wax kasta oo ay rabto aan siinayno ninkayguna wuxuu bilaabay inuu shaqo labaad raadsado markii aan guriga tagnay Jamiila waxay bilowday inay ku ciyaarto alaabaha yaryar ee ciyaalku ku ciyaaraan waxayna u muuqatay mid faraxsan aniguna sidoo kale waan faraxsanaa sidaas ayayna ku bilaamatay nolosheena cusub intaas kadib waxaan go'aansanay inay Jamiila sii joogto dugsigeedii hore maxaa yeelay isbedel degdeg ah haddii aan ku sameyno Jamiila ayuu qalqalgelin karaa bishii xigtay markii la gaaray galabyada ka mid ah ayaan aaday Jamiila si aan uga soo qaado dugsiga laakiin waxay igu yiraahdeen Jamiila meeshan kuma sugnaa waan argagaxay waxaan la yaabay qofka ka bixiyay goobtan maxaa yeelay aniga oo kale ayaa ka bixin kara goobtan waxaan ka raadiyay meel walba sida fasalada musqulaha iyo dhan walba uu dugsigu leeyahay markii aan weydiiyay asxaabtayda waxay yiraahdeen maynan arag iyadoo baxaysa macalimadii ayaana oysay kadib waxaan go'aansaday inaan la kulmo maamulaha balse waxay yiraahdeen way shiraysaa kadibna waxaan go'aansaday inaan sugo intii aan sugayay waxaan wacay ninkeyga oo u sheegay wixii dhacay wuxuu isku dayay inuu i dejiyo isagoo ii sheegaya inayna bixin haddii aysan cid kale la socon wuxuuna ii sheegay inuu jidka kusoo jiro markii nus saac ay dhaaftay maamulihiina ay la kulmin ayaa waxaan ku khasbanaaday inaan u sheego xogayaha in xaaladdeedu ay tahay degdeg xogayihii ayaana xanaaqay laakiin waxa uu hanjabay in haddii aysan si degdeg ah ila kulmin maamulaha aan la xiriiri doono booliska si aan ugu wargeliyay in gabadheedii la waayay hanjabaadaas ayaana ka dhigtay in maamuladii ay ka soo baxday xafiiskeeda iyadoo albaabka xirtay si ay ii tusto inay mashquul tahay cod adag ayayna igula hadashay waxaad u muuqataa in Jamiila ay kaa carartay waxayna u badan tahay inaadan farxad siinin waxay ahayd qalad weyn in adiga lagugu aamino daryeelkeeda sababtoo ah ma awoodid inaad daryeesho kadibna si xad dhaaf ayaan u ooyay waxaana ku dhaartay inaan wax walba u sameeyay si aan uga farxiyo iyada balse maamulihii ayaa ay ka tagtay tag meel kale si aad u raadiso Jamiila kadibna anigoo daalan ayaan fariistay waxaana bilaabay inaan isweydiiyo marunbaa waxay sheegtay Jamiila maxay iiga carartay martamiya inaan hooyadeed noqdo ma hooyo xun baan ahay si lama filaan ah dareen yaab leh ayaa igu soo dhacay anigoo hubinaya in gabadhaydu ay ag joogto inkastoo aan dhalin waxaan eegay xagga xafiiska maamulaha waxaana raacay dareenkayga anigoo xoog ku furay albaabka waxaana gudaha ka helay Jamiila oo kursi ku fadhida oo ooynaysa iyadoo naagtii maamulaha ahayd ayna nacsiinayso markii aan arkay waxa ay sameysay naagtii maamulada ahayd dareenkayga wuxuu iga dhigay sidii bahalkii wax walbana waxaan u sameynayay si aan u badbaadiyo ilmahayga waxaan ka riixay haweeneydii Jamiila kadibna waxaan si xoog leh hab u siiyay Jamiila hooyada waatan hooyada aniga weeye gabadheydii yarayday kadibna nin iyo naag ayaa xafiiska soo galay naagtii ayaa ninkeeda ku tiri fiiri sida ay qurux badan tahay gabadhaas waxayna farta ku fiiqday Jamiila waa inaan qaadano gabadhaas wayna nagu wanaagsan tahay inaan korsano gabadhan waa gabadhayda Ureya waxa halkan ka dhacay waa isfaham la'aan aniga ayaa Jamiila dhawaan korsanaya maamulaha ayaana noo qabtay balantuna maanta ayay ahayd waxaana u nimid si aan u qaadano haddii aad rabto cadeymo dhammaan warqadihii waa diyaar markii uu hadalka yiri ninkii wejiga maamulaha ayaa midabkiisu isbedelay waxaana iri adiga ayaa Jamiila afduubtay si aad uga iibso qoys kale ninkii wuxuu ku qeyliyay adiga gabadha haddii aad isiiso waxaan ku siinayaa lacag aad u badan xoolayo waxaad rabtaa inaan qof nool lacag siisato waxaad u malaynaysaa in caruurtu alaab yihiin oo aad sidaa rabto u isticmaali karto xabsiga ayaa ku sugaya goor dhow
ninkaygii ayaa yimid wuxuuna gacmihiisa ku qabsaday gabadheeni Jamiila gabadheedii yareyd. Ugu dambeyn waan ku helnay. Saamir wac booliska. Kadibna anigu waxaan u sheegay wixii dhacay oo dhan. Saamir ayaana ku sigtay inuu wejiga ka feero maamulaha, balse waan ka celiyay. Kadibna waxaan dhammaanteen isugu nimid saldhigga booliska iyadoo markhaatiyaashu ay joogaan. Maamulihii waxaa lagu xukumay xabsi maadaama ay afduuban jirtay carruurta. Annaguna waxaan sii wadanay nolosheenii si farxad leh iyadoo Jamiila qosolkeedu sii kordhayay maalinba maalinta ka dambeysa.